السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا تشرفت بدن وحنا channel كان أحمد شيل official جايز وإذن سلام عليكم أول بارك جوتين وحنا لا إذن كجبرنا عمل داري عافمات هذا وفرحنا أنا سولا ونو فيديو كلا قرب بدن إن رونانتي هاي لو إنه درست ولا لا إحنا وصلنا إنه إلى عافمات سيكو عافمات خوان إنه إلى رسائديو إن رونتي فيديو كان وحمات وصلت ويا فنس كوحران channel كيجا أو جودا إن سؤالين يسوي ديان وحروانا سؤالين كاس أو جواب إن شاء الله دي لا كلام نقض سؤالين كاس ما كان كجواب كدبنا قفل بكوحران channel كان أما داونا الفيديو كان وحروانا أنت أو بديرو فرين مهم لقيا وفرين تاسنا كتاوتو هدي لا كلام نقض فيديو قد ميسو سي أفهمته وحن كهل روا أما فرينت أنكسو بيرروا لقيا وفرين تاس إنه كخصيصو أما بري كمان إنه أدي سامين كوجيالن دونتو marka hadii ilaahay karaam noqdo aan si guud galno fiidiyogeena iyo su'aalaha aan rabo inaan faniskeyga ugu jawaabo runtii waxaa tiindada aad u jeclahay faniska ku xiran channelkan waxay isoo weydiiyeen Axmed Sheelila iyo Axmed Emshi in uu hal qof yahay ama in ay laba qof yihiin taas waxaan rabaa dad badan inaan ka jaahil bixiyo hadii ilaahay karaam noqdo runtii Axmed Emshi ama Axmed Sheelila labadaba waa isla anigii wax farqi u dhaxeeya malahan markii aan runtii heesayo ama heesaan soo qaadayo waxaa inta badan channelkayga ku qoran Axmed Emshi markii aan soo heeso markii aan youtuber caadi soo noqonayna ama asal youtuber aan ka soo muuqanayo channelkayga waxaa ku qoran Axmed Sheelila official taasoo aan ugula dan leeyahay Axmed Emshi waa magacaygiyo saddexan aan soo gaabiyey ama aan ka dhigay small letter anyway taas waa taas dadka aan hore u fahansanin waxaan rajeynayaa hadda inay fahmeen midda kale xitaa aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay mar walbaba waxay igu soo laalaabato su'aal ah maxaad mar walbaba micnaa adiga usoo haystaa ama midkee tahay youtuber ama fanaan runtii video badan waxaa jira aan ku cadeeyay ama ugu sheegay faniska dabcan waxaan rajeynayaa inay dadka inta badan fahmin waa sababtay su'aashaas igu soo laalaabanayso aniga runtii waxaan jeclahay inaan youtuber ahaado hobkeyga iyo hamigeygana waa youtubernimo horan ugu cadeeyay u sheegay arrintan heesaha runtii waxaa jiro taariikh dhab ah oo aniga isoo martay aan hore u sheegay waa sababta aan mar walbaba usoo heeso ama hees aan usoo qaado mararka qaar haddii ilaahay karaam noqdana way dhici doontaa maalin inaan dadka ka jaahil bixiyo arrintaas iyo waxa ka dambeeya heesahayga iyo background-ka sababa inaan aniga hees qaado mar walba waxaan rajeynayaa markaan ugu wiciisa youtuber waxaan dareemaa farxad runtii fanaannimada ma dhahayo wax xun waaye sababtoo ah qofka waxa uu noqon karaa fanaan uu heesi karaa hobkiisa iyo markaas wuxuu asaga ku fikirayo ama dareenkiisa bulshada uu soo hordhigi karaa uu macnaa muujin karaa berina hadduu rabo iska dhaafi karaa taas isna waa big deal marka aad ugu faraxsanahay inaan su-aashaas ay soo weydiiseen jawaabteeda aad fahamtaan midda kale aan rabo guys waxay tahay runtii inaan idin sheego su-aal kale oo aada muhiim igu ah oo aan rabo inaan idinla wadaago qofaa wuxuu isoo weydiiyey maxaa caqabad ah kala kulantay youtube-ka markaa bilaabeysay runtii waxaan soo koobi kara ma ahan youtube-ka markaan bilaabayay waxaan la kulmay caqabad aada u badan runtii waa arrinta hadda aan ku dhahayo laga yaabo inay adiga saameyn kugu yeelato hadda i daawanayo runtii markii aad youtube bilaabaysid waxyaalo badanaa la kulmaysa aada u fara badan waxaan rabaa intii aan hadalkaas si guri gelin halkaan inaan ugu mahadceliyo dad badan oo channelkan ku xiran oo maalintan aniga youtube soo bilaabayay ilaa ay hadda i garab taagan oo la socday videoga ugu horeeyay koowaad ilaa ay hadda waxaan youtube soo dhigayay ina garab taagnaay ilaahay ka sokow oo aan ayaga mar walba xasuusto markaan arko heerkaan taaganahay iyo meesha aan hadda ka muuqdo ilaahay ka sokow ayaga dartooda ku gaaray waxaa kaloo halkaan hambalyo ugu dirayaa walaalkeena arrimaheena maxaa yeelay waxaa jirtay hees aan soo qaaday oo aan isla soo qaadnay DJ Subagedi aniga aada u jeclaaday qaabka uu reaction ugu soo bixiyay waxay ahayd qaab aad u wanaagsan waxaa kaloo halkaan ugu mahadcelinayaa asagana dhanaan media oo asagana kasoo bixiyay heestaas reaction marka waxaan idin dhahayaa walaalaha qaaliga ah arrimaheena iyo dhanaan media aada idin salaamaya guys meel walba dadka ka joogtiin farxad ku noolaada markii aan gudagalo su-aashii laysoo weydiiyey oo ahayd micnaa maxaa caqabad kala kulantay runtii guys qof walba oo bini aadam ah markuu riyoodo ama hami ku fikiro ma waayo wax micnaa hor istaago ama si uun ulug jaro ulug gooyo marka waxaa ogaataa markii aad hami rabtid inaad gaartid ama meel aad higsatid waxaad arkaysaa qof ku taageerayo qof ku niyijibinayo qof ku dhahaya xataa micnaa waxaan ma samayn kartid waxaasoo dhan runtii waa soo maray waana soo arkay xanuunka ay leedahay marka
alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta ilaaha ugu mahadcelinaya booskan hadda aan joogo alxamdulilah ilaahay gaarsiiyo kasukoo idinka ay gaarsiiseen runtiina aada ugu faraxsanahay in aan haysto dad fiican oo qurxoon sidiin oo kale ah qof walbo channelkan daawanayo runaantii mar walba ugu celceliya waana u sheegaa hani markii aad leedahay ama aad rabtid in aad meel tiigsatid ma weynaysid wax adiga markaas isku dayo inuu dib kuu dhigo xataa ha naqdo qofka dadka kugu dhow oo adiga ay isdhehaysid maanta wuu ku wanaagsan yahay oo sidaad wax u rabto oo asagana wax u rabaa waxaan kala kuu sheegayaa qof walba wanaagsan oo qalbi fiican oo mar walbaba jecel dadkana inay horumar gaaraan isna wax uu qabsado waa lagu niyajibin doonaa sax markii aad rabtid inaad horumar gaartid ama waxa aad samayn doontid dad badan oo ku niyajibiya arkaysaa balse waxaan ku dhahayaa adigoon dad u caroonin dad u xumaanin ama dad micna markaas qaqabsanin isku day in aad adiga go-aankaa qaadatay oo ahaa micnaa go-aankaa qaadatay oo ahaa inaad horumarkaan tiigsatid ama aad samaysid keliya aad la kaashatid alihii adigu ku abuurtay asaga unbaa u baahan tahay markii aad mar walba rabtid inaad wax samaysid qof bini aadam uma baahnid waxaa u baahan tahay ilaahay inaad barisid oo asaga aad ka barisid sida adiga markaas aad ku riyootay ama horumarkaas inaad gaartid maxaa yeelay wuxuu ilaahay adiga kuu qorin micnaa maraysidbo marka waxa waaye dadka hadday isku dayaan inay ku liidaan ama isku dayaan inay hoos ku dhigaan ama isku dayaan inay horumarkaaga micnaa ku farxi waayeen ma u baahnid inaad iscalool xumaysid ma u baahnid inaad niyijabtid ma u baahnid inaad dadka micnaa si xun iyo dabeecado qaldan la dhaqantid mar walbaba ku fikir dhanka wanaagsan mar walbana qofka ku xumeeya isku day inaad wanaajisid maxaa yeelay mar walba xumaan lagu geysto aad samaan ku bedeshid taas waxay ka caawinaysaa in aad dhiirnaan kasii qaado iyo horumar marka qof walba videogan daawanayo oo damacsan ama rajeynayo inuu horumar gaaro haddii aad engineer naqatid haddii aad rabtid inaad driver naqatid haddii aad rabtid inaad maanta macalin dugsi naqatid ama macalin iskuul ama waxaan ku fikiraysid ama horumar rajeynaysid waxaan ku dhahayaa kaliya ilaahay la kaasho dadaal badanna samee si aad horumarkaaga u gaartid waxaan jeclahay ama aan mar walba jeclahay in aan idin sheego guys wanaagga mar walbaba waxaa fiican in aad la wadaagtid qofka adiga aad jeceshahay ama qofka aad adiga micnaha is leedahay qofkan uu u qalmaa in wanaag lala wadaago so idinkaa u qalmo in wanaagna la wadaago idinkaa u qalmo in mar walbaba micnaa laidin horkeeno wixii wanaagsan marka guys aada umahadsantiin mana iloowaay sidaan idin jeclahay iyo meeshaan mar walbana micnaa kasoo bilaabnay oo haddana aan u socono haddii ilaah u kalaal naqdo guulo badan waa gaarnay inta noo dhimanna waa wada gaarayna anagoo wada jir ah team axmed mshe waxaan in leeyahay mar walba guuleysta meel walba adduunkaa ka joogtiin una duceeya walaalihina xanuunsan inuu ilaahay caafimaad siiyo kan caafimaad qaban inuu ilaahay u zaa-idiyo marka waxaan idin dhahayaa mar walbaba isku duceeya is ogaada oo mar walbaba naqda kuwa mar walba isfaro maxaa la dhihi lahaa wanaaga midkiin midka kale hadduu dareemo inuu wanaag micnaa markaas uu rabo inuu gaaro ama horumar gaaro haddii uu la tashi siiyo haddaada waxba u qaban karin walaalkaaga fadlan ku caawo fikirkaaga qurxoon waxaa laga yaabaa beri asaga dartiisa inaad adiga wax ku naqatid marka aada idin salaamaya gaysantan videoga video lamid ku kulmeyno waxaan idinkaga tagaya sidaas nabadgelyo